Somaliland ayaa ku guuleysatay inay ballaariso miiska wada hadalka ee ay kula jirtay wadanka Soomaaliya waxaana imika la sheegayaa in hay'adda la yiraahdo Central Human Dialogue oo xarunteeda Geeska Afrika ay wado inay isku soo dubarido wada hadallo ka heer sareeya kuwii hore ee dhexmari jiray labadaas wadan ee Somaliland iyo Soomaaliya waxaana warku inta ku daraya in hadda ay ku soo biiri doonaan wadamada Norway, Sweden iyo waliba wadanka la yiraahdo Switzerland waxaana la sheegayaa inay arintani ku timi gudoomiyaha hay'addan Maxamed Cabdilaahi Cumar oo dadaal uga geystay sidoo labadan mas'uul ee hogaamiye Soomaaliya iyo Somaliland Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi si toos ah ugu wada hadalsiin lahaa labadooduna ay aqbaleen in la kordhiyo wadamada dhexdhexaadka ka noqonaya oo goobta joogaya iyo in si wanaagsan looga wada hadlo xaaladda dhabta ah ee dhex taala labada wadan waxaana la sheegayaa inay Somaliland ku kaliftay tani kadib markii Turkigu uu ku noqday dhexdhexaad wada hadaladii hore oo ay waxba ka fuli waayeen waxaana heshiisyo la taaban karo lagu gaaray wadanka Turkiga oo ay ka mid ahaayeen heshiiskii hawada sidii loo maamuli lahaa walow aanay waxna ka fulin Turkiguna aanu culays ku saarin markaas kadibna ay Somaliland u aragtay inaanu Turkigu dhexdhexaad ka ahayn wada hadallada labadan dhinac oo uu dhinac la safan yahay markaa kadibna Somaliland ay ku baaqday in wada hadalka la ballaariyo waxaana la sheegayaa inay kala imika fursadda sii weyneynayso labada madaxweyne oo haysta waqti ay ku hogaamin karaan labada gobol ay ka taliyaan oo mid waliba uu xilligu joogay imika u harsan xilliga uu joogay uu yahay xilli aad u kooban xafiiska xilli badan oo kalena uu harsan yahay waxaana laga filayaa inay labadan maadaama ay yihiin laba nin oo si dhaba Soomaalinimada u metelaya inay ama isu geeyaan labada gobol ee kala irdhoobay ama ba ay kala fasaxaan wadamadaas inkastoo la sheegayo oo dadka qaar sheegayaan wadamada ay ka mid yihiin Norway iyo wadamo kale inay iyagu dana gaar ah kale yihiin wax soo saarka wadanka iyo shidaal la sheegay inuu ku jiro waa sida ay dadka qaar qabaan tan ayaa se noqonaysa fursadii ugu wanaagsanayd haddii ay si wanaagsan ugu kala baxaan marka ay soo hor fadhiistaan iyaga oo Soomaaliya